dhalinyaro badan baa waxay la dhibaataysan tahay go'aan qaadashada badana dhalinyaro badan ayaa niyada waxay ku hayaan wax caado xun u ah inay iska daayaan laba maalin markay iska daayaan maalin saddexaadka waa kusoo laabanayaan caadada xun waxaa la yiraahdaa wax walba markaasi naftaada dhibsanayso marka aad samaysid aad ka shaleynaysid ama aad ka murugoonaysid oo aad isleedahay maxaad u samaysay caadada waxay noqonaysaa gacanta midig waxay noqon kartaa balwada waxay noqon kartaa qof markaa ku dhibaataynaya oo xiriirkiisa aad ku dhiban tahay oo aad ratid inaad iska deysid wax walba maskaxdaada ay kugu amreysay inaad iska deysid haddana aadan iska deyi karin waxaa la yidhahdaa caado xun haddaba sidee caadada xun iskaga deyi karaa oo qof hadday noqonayso inaad ka go'did hadday noqonayso gacanta midig inaad iska deysid iyo hadday noqonaysaba inaad balwad iska deysid badana waxaa laga yaabaa inaad xog raadisid oo ah waxaas iska daa dhibaatay leedahay haddii gacanta midig noqonayso waxaa laga yaabaa xanuun baa laga qaadaa in lagu yiraahdo haddii balwada noqonayso waxaa xanuun baa laga qaadaa in lagu yiraahdo laba maalin markii aad isdhiirigelisid oo aad iska deysid isla markii waxaa dhacaysa inaad kusoo laabatid soo laabashadaasna waxay sababaysaa inaad tahay qof go'aan jilicsan haddaba sidee go'aan adag lagu qaataa sidaynu ognahay horta qofku marka hore waa inuu ogaadaa inta uu wax iska deynin maxaa sababaya waxaa jira wax la yiraahdaa signal calaamad wixii baad arkaysaa haddii aad qof jeceshaa ha noqoto hadday noqonayso balwadii sigaarkii ama sawirro qaqaawan ee moobilka kugu jiraan ama aad follow garaysid dadka gurigaagaba ay yaalaan sawirro qaawan wixii marka ay kuu muuqdaan isla markii indhahaaga ay arkaan naftaada ayaa fariin loo diraya naftaada fariin markii loo diro isla markii maskaxda fariin loo diraya maskaxda markii fariin loo diro maskaxda waxay leedahay waxaasi haddaan sameeyo waxaan helayaa farxad iyo raaxo iyo istiin kadib maskaxda fariin markii loo diro jirkeena waxaa lagu soo sideynaya hormoonka dopamine la yiraahdo oo ka qayb qaata raaxada marka jirkaaga dopamine lagu soo sidaayo waxaa la shaki ah inaad ku dhaqaaqayso wixii inaad samaysid hadday noqonayso gacanta midig iyo hadday noqonayso balwada iyo hadday noqonayso qofkii ku dhibaateynaya inaad ka fikirtid ama aad isku daydid inaad wacdid ama message aad u qortid kadib markaa message u qortid waxaa laga yaabaa isla markii inay maskaxdaada su'aal ku soo dhacdo maxaad message ugu qortay inshallah uu ku yimaado haddii aad sigaarka cabtin waxaa laga yaabaa isla markii markaa sigaarka dhameysay inaad tiraahdo waa kii ugu dambeeyay mar dambe ma sameynayo haddana waxaa laga yaabaa gacanta midig markaa isticmaashay isla markii aad tiraahdo waa markii ugu dambeysay inshallah iyo murugo ee caado xun walba aad ku dhaqaaqdinay kadib waxaa imaanaysa inaad shalaysid in horumarkaagii iyo wax soo saarkaagii ay hoos u dhacaan waxaa laga yaabaa inaad waxbarashada waqti u weydid waxaa laga yaabaa caajislow inaad noqotid oo mar walba iscanaanto oo la nool dulmi sidaynu ognahay markii aad caado xun ku dhaqaaqdo waxaad dareemaysaa dembi inaad gashay dembigaa tirada badan aad dareemaysid waxay noqonaysaa naftaada mid liida haddaba maanta dhiirigelin uma baahnid iyo sida liiskaga daayo ee waxaad u baahan tahay inaad ogaatid maxaa sababa waxaan haddii maanta laptopkaaga ay ka buuxaan sawirro ama moobilkaaga ama gurigaaga ay yaalaan sawirro qaqaawan taa micnaheedu waxa ay tahay in indhahaagu ay qabanayaan signalka koowaad ee dhacaya uu yahay in wixii aad arkaysid xitaa gurigaaga hadduu sigaar badan yaallo ama waxa maanduuriyaasha ay wada yaalaan signalka koowaad indhahaagu ay arkayaan waxay tahay wixii markaad aragtid naftaada fariin loo diray kadib waxay noqonaysaa silsilad aan dhammaanin indhihi way arkayaan naftaada amar loo diraya maskaxdiba amar loo dirayaa kadib jirkaaga wax lagu soo sideynayaa waxay noqonaysaa waxaan dhammaanin oo silsilad camal kadib sheekadu waxay kusoo gabagaboobaysaa shalaygii haddana biri meeshii bay ka bilaabanaysaa haddaba taasi saysan u dhicin marka hore waa inaad ku dadaashaa in moobilkaaga la waayo sawir qaawan ama dadka aad follow garaynaysa aad unfollow tiraahdo haddii dad qaqaawan yihiin haddii gurigaaga guri balwad yahay oo aad doonaysa in balwadana aad iska deysid waa in gurigaaga wax balwada laga waayaa haddii qofkaani nolosha xiriirka idinka dhexeeyo oo moobilkaaga sawiradiisa ka buuxo meesha aad geshid baad asiga arkaysid isla markaasaan u aragtid fariintii baa bilaabanaysa silsiladii waxayna ku dhammaanaysaa shalaygii caado xun caado ayaa lagu gooyaa haddii maanta caadadaasi xun aad ka dhammaan la'dahay caado kale oo cusub inaad la timaadid badanaa haddii aad ka mid tahay akhyaarta igala socotay waxaad aragtaa anoo bannaanka meel cidlaa maraayo taasi waxay ii tahay caado gooniye ah waayo bannaanka markaan u baxo indhahaygu waxay qabanayaan geedo kadibna fariin baa nafta loo diraya geedihii baan arkay fariintu markii loo diro maskaxda haddana fariin loo soo diraya fariin maskaxda markii loo soo diro waxay ogaanaysaa maskaxdeeda inaan u socdo meel cidla ah kadibna waxa ay tahay caadadaasi mid ani gooniye ah haddii aad doonayso maanta inaad caado xun iska jirtid waa inaad la timaadaa caado kale taasi oo kuu sahlayso inaad kaga maarantid caadada xumeed waa saaxiibkaa Shaahid Bisaani haddii aad videogan ka heshay asxaabtaada la wadaag wixii fikirkaaga comment waad igula wadaagi kartaa meel walba dunida ka joogta Allah kugu xifdiyo dadaal